gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa maanta kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda gaar ahaan wadada Biyaas Liibaro oo dhaxmarta degmooyinka Waaberi, Xamarjab iyo Xamarweyne iyo wadada Jasiira ee degmada Wadajir oo ay dowladdu si xamar ka wado howlo dib u habeyn ah kaas oo lagu xoojinayo bilicda caasimadda iyo sidoo kale fududeynta isku socodka gaadiidka iyo bulshada. kormeerkan waxaa duqa magaalada Muqdisho ku welinayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Cabduqaadir Maxamed Caanabore iyadoo ujeedka kormeerkan uu ahaa mid uu gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Filish uu kuurgalayay sida ay u socdaan mashaariicda dib u dhiska ah iyo arrimaha nadaafadda la xiriira. maalmihii la soo dhaafay ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu waday dadaalo kala duwan oo lagu dardargelinaya dib u dhiska bilicda caasimadda, arrimaha nadaafadda iyo sidoo kale oo soo daadejinta adeegyada ay dowladdu si xamar gaarsiiso shacabka ku nool magaalada Muqdisho.